الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan ummadda islaamka ah. waxaan kaloo salaamayaa ummadda Soomaaliland ku nool dhammaanteedba. waxaan uga tacsiyadeynayaa hadalkii saliyada ee ay ka soo yeeray samsam ka soo yeeray iyadoo lagu jiro xilli abaareed. waxaan leeyahay waxa nasiib darro ah isagoo uu marayo mas'uulkii u sarreeyay ee dawladda Soomaaliland madaxweynihii waddanka isagoo marayo oo ay la socdaan wasiiradiisii ugu jeclaa ee ay qaar ka daba way jireen sida la og yahay in uu galo madaxweynuhu galo shirbeeleed oo loogu yeero laga saaro wasiiradii ugu mugga weynaa ugu jeclaa ugu maxaafidsanaa dibadda looga saaro. haddaan u soo noqdo hadalkii ay ka jeedisay samsam meesha waxaa lagu sheegi karaa ama lagu sifeyn karaa aafo qaran. hadalkaas wuxuu ahaa aafo qaran. waa markii ugu horreysay ee tullaaya reer hebelaay na doortaay ilaa 54 baynu dagaal iyo xulufaa haynay. waa markii ugu horreysay ee la geeyo TV-ga qaranka ee laga jeediyo ee laga sii daayo waliba lagu celceliyo. waa nasiib darro. intaa waxaan ku darayaa markay laba reer shuraaka ahaayeen ilaa 54kii siday samsam ka dhawaajisay ee ay u shuraakoobeen ummadda ku dhaqan waddanka inay keligood xukumaan inta kalena raaciyaad u noqdaan. reerihii Siinaanyo soo doortay ee soo saaray ee samsam iyo reerkoodaba ka codka badnaa maxay ahaayeen iyagu markaa miyay soo kireysteen ma been bay u sheegeen? waxa weeye wax sidaynu ognahay waxa codeeyey oo Soomaaliland Siinaanyo u codeeyey ummadda Soomaaliland ku nool badideeda u codeysay 80% ba u codeeyey. dhammaanteedna beesha samsam bay ahaayeen shuraaka la ahaayeen. waa wax lala yaabaa. waxay ceeb ku tahay ummaddii codeysay oo iyo nasiib darraba ee madaxweynaha u codeysay ee soo saartay ee har iyo habeen bay u soconaysay ee u halgantay. waxaan idin sheegi karaa inay hadalkaas hadal been yahay oo aan waxba ka jirin. anigu ka suldaan ahaan waxaan ahaa xisbiga Liyaada Kulmiye ninkii tobnaad ee wax ka asaasay baan ahaa. kaarkayga waa kan. waana eegi kartaa saxaafadda haddaad tihiin beesha samsamna ka mid ma yihi. hadalkaas wuxuu ahaa hadal af ka weyn oo waxba meel loo waayey ayuu ahaa. waxaan ka maqlaayay saxaafadda oo laga lahaa oo rag badan oo samsam hadlaya ay lahaayeen. waxaan idiin soo diraynaa intaan ololaha la gaadhin dumarkaan soo diraynaa oo taageersan samsam. midhaan lacag bay kaga doonayeen. waxaan u malaynayaa dhaqanka Isaaq iyo dhaqanka Soomaalidaba ceeb bay ku ahayd in hablaha la soo diro. in hablaha la soo diro. hablaha wixii loo soo diri jiray waa la yaqaanaa. waana ceeb calaygu weeyi in hablaha la soo diro. waxay inanta horta anigu marka hore samsam waxaan leeyahay horta waxa weeye waxay iftiimisay oo ay daha ka qaaday wax badan oo ummadda ka dadnaa waddankana ka socda. waddanka waxaa ogtihiin musuqmaasuq la digay. musuqmaasuqa sabab waxa ka ah samsam baa ka ah. laba waxa ka ah madaxweynaha. laba waxa ka saddex waxa ka ah islaamaha kale taliye faraha badan ee meesha jooga. waddanka waxaa ogtihiin in cadaalad darro badan ka jirto oo baahday. haddii aan ka soo qaado imika waxbarashada oo kale waxaa ogtihiin 16 iskuul baa ka furan meesha leeyahay Gabiley. 16 iskuul ee Gabiley ka furanayba waxa ay ku qalbaysan kumbuyuutarro dhammaantood. nin kasta oo maamulo oo iskuulkaasina dawladdu gaari bay siisay. wasiirka waxbarashada oo maalin dhawaatii halkan sadcaal ku yimi mar wax laga weydiiyey arrintaasoo la weydiiyey iskuulladan ma laha kumbuyuutarro. iskuulladan ma laha kuraasi jabtay oo maartay laga bedelo. iskuullada dhib badan baa haysata. maxaad u haysaa? wuxuu ugu maahmaahay allafa bayna qulubihim. dadka waxaan soo dhaweynaynaa Gabiley iyo laascaanood baan soo dhaweynaynaa. waxa weeyaan Gabiley waxay ka mid noqotay allafa bayna qulubihim qoladii Ilaahay quraanka ku sheegay ee lagu soo dhaweeyey ayay ka mid noqotay sida imika ka muuqata. waxa ogtiin caawimadii imika abaar baa dhacday. abaarta kulmiya la yiraahdaa oo loo bixiyey. waxa weeyaan Gabiley iyo eryada wixii ku simanay waxa weeyaan roobku uu helo Ilaahay barwaaqo siiyey. caawimada markii la bixinayay intii ugu badnayd ee caawimooyinkii dadka laga ururiyey carruurta masaakiinta laga soo dhiftay waxay u bixeen xagga Gabiley. way la socotaan. samsam baan hadda ka dambayso arrintaas dibadda ka riixaysay. waxa weeyaan waxaan ku sheegayaa
wasaaradda maaliyaddu waxay noqotay wasaaraddii lagu boobayey ummadda meeshii shacbiga lagu dulmiyey waxa weeye waxa ogtiin wasaaradda waxbarashada kale ilaa iyo buugaagtii la soo bixiyay bilaashka hay'adda la dabacsanaa ardaydu inay wax ku dhigato dhammaantoodba waxa weeye waa laga iibiyo wax la ardaygaan iibsanin waa iskuulka waa laga riyaa waxa ogtiin in ay wax kasta ay barareen wax kasta inay barareen oo ay maanta ay marayso meesha ugu xumeed Soomaaliland qabyaaladii waxa ogtiin in shaarka laga qaaday si cadaana waxaan kaloo imika halka ku soo gabagabeyn kara wixii ka dhacay madaxtooyada Burco waxay ka dhigan tahay laba qof oo inta sinaysteen oo habeenkii iyagu kala sinaysteen inta wax iska duubeen dibadda TV-ga keeno aroorta naga sii daawar warbaahinta anigu taasaan ku sifeen karaa taa halkaasaan kaga tegayaa halkan waxaan ka cabaaraynayaa mas'uuliyiinta la xilxiray ee xisbiga wadani iyo wariyayaasha jeelka dhexe saldhigga dhexe ee Hargeysa lagu soo xiray ee mas'uuliyiintii qaranka oo ka mid yahay gudoomiyaha xisbiga wadani ahna gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi hogaamiyaha xisbiga xirsi cali xasan xaaji cali iyo niman kale mas'uuliyiin oo fara badan qoriga la iskula hortaagay iyagoo soo booqanaya ragga dadka lagu xidhay meesha ee cadaalad darrada ku xidhan aad baan uga xumahay waan cambaaraynayaa sida wax u wadan hadii wax loo wadana waxay u egtahay in nin kasta wax kasta oo qof kasta oo Ilaahay abuuray uu sharciga gacantiisa ku qaatay dadkan bini'aadanka wax isu keenay sharci buu ahaa sharcigii isu keenay nin walba gacanta ku qaatay waa idinka arkaya maanta nina loo sheegi maayo inta waxaan ku darayaa oo aan ku soo gabagabeynaya hadalkaygan waxaan dhageysanayay ninka Leeyahay Maxamed Muuse Diiriye oo ahaan jiray barasaabkii hore Burco makana ah gudoomiye ku-xigeenka amniga qaranka oo markuu tog dheer joogay looga yaqaanay Raamsi Weyne odaga Raamsi Weyne loo yaqaanay waxaan leeyahay waxa wadanka kale hor jooga Raamsi Weyne waa sharci iyo xishood iyo dadka oo isu tanaasula laakiin haddii maanta sidaad u wado wax loo wado oo sidaad u hadlaysay xal loo hadlo waxa weeye waxay noqon doontaa nina gaaro qurux badan Hargeysa ku kaxaysan maayo nina guri dheer fuuli maayo waad ogtahay haddii cayd la noqdo cayd saasaan ku sheegay kuwa caydsan baad ka mid waxa leeyahay nin wasiira oo mas'uula oo xil qaran haya uma haboona sidan aad u hadashay xalay u hadlaysay waana ku cambaarayna 100% waxa ogtahay wasiirkii biyaha in laga celiyay madaxtooyada oo la diir waa lagu baaraya iyadoo lagu sababaynayo hadal run oo hore uga soo baxay waxaan leenahay wixii qabyaalad wax ku doonaya wixii musuqmaasuq wax ku doonaya wixii dulmi iyo been iyo xaraan wax ku doonaya ilaahay dadka ka qabto waxaan ummadda wanaag baan ugu faraynaa waxaan leenahay war qabaa'ilka ka dheeraada war qabaa'ilka qabyaalad hadii wax tarayso waxay wax tari lahayd oo aan ku naaxi lahaa kuwa imika wal faraaq ku jira walaaqaya iyo kuwa hore ka tagay waxaan halkii ku soo gabagabeynaya war isku duubnaada oo dantiina ummaddu dantooda ha garato ummaddu ha iska saarto munaafiqiinta ummaddu ha ka hortagto waxaan imika wadanka ka socda saasaan ku soo gabagabeynaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh